Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xidhan kanaalkeena Mandadi kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu kaga hadli doono Turkmenistan oo tan iyo intii uu COVID-19 u bilaabmay aan soo sheegin wax kiis ah oo la xidhiidha coronavirus. Balse intaynaan bilaabin barnaamijka, daawada haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, subscribe noo saar, sidoo kale gambalaalka furo si ay kuu soo gaadhaan barnaamijyada dambe. Siino sheer garee barnaamijka si uu gaadho saaxiibo kale oo danaynaya inay ogaadaan mowduucyada noocan ah. tan iyo markii uu dilaacay cudurka coronavirus horaantii sanadkii hore, Turkmenistan ay diiwaangelin wax kiisas ah oo la xidhiidha COVID-19 gudaha dalkeeda. Ama ugu yaraan arrintani waa mid ay dowladdu sheeganayso. Waa waddan dhaca bartamaha Aasiya, waana mid ka mid ah jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka oo ku dhowaad 6 milyan oo qof ay ku nool yihiin. Turkmenistan waxay ka mid tahay ugu yaraan 5 waddan oo aan soo sheegin wax kiis ah oo la xidhiidha fayraska COVID-19 sida laga soo xigtay xogta Mareykanka, jaamacadda Johns Hopkins iyo ururka caafimaadka adduunka. Shabakadda Mareykanka ee CNN ayaa warbixin ku tilmaantay in wadamada kale aan soo sheegin kiisaska fayrasku ay yihiin 3 jasiiradood oo go'doonsan oo ku yaala badweynta Pacifica iyo Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Turkmenistan oo dalka xukumayay ilaa 2006 ayaa meesha ka saaray wararka ku saabsan caabuqa coronavirus ee sheegaya in Turkmenistan laga helay kiisaska, isagoo ku sheegay khudbad uu ka jeediyay Qaramada Midoobay in falcelinta laga bixinayo caabuqan aysan noqon mid la siyaasadeeyo. Laakiin ururada madaxa bannaan, saxafiyiinta iyo dhaqdhaqaaqayaasha ka baxsan Turkmenistan ayaa sheegaya inay jiraan cadaymo muujinaya in waddanku la tacaalayo mowjad saddexaad oo buuxdhaafsay isbitaalada, waxayna ka digayaan in madaxweynuhu uu hoos u dhigayo halista fayraska dilaaga ah si uu u ilaaliyo sumcaddiisa. Raslan Mayatiev oo ka soo qaxay Turkmenistan oo ah tafatiraha guud ee wakaaladda wararka madaxa bannaan ee fadhigeedu yahay Netherlands ee Turkmenistan News ayaa sheegay inuu shakhsi ahaan soo ururiyay magacyada in ka badan 60 qof oo uu sheegay inay u dhinteen coronavirus gudaha dalka Turkmenistan, kuwaasi oo ay ku jiraan macallimiin, fanaaniin iyo dhakhaatiir. Mayatiev wuxuu sharxay inuu hubiyey dhammaan geerida ku diiwaangashan diiwaanada caafimaadka, kuwaasi oo uu sheegay inay daaha ka qaadeen dhaawac daran oo sanbabka ah iyo daweyn caafimaad oo waafaqsan dhibanayaasha. Dhibaatadu waxay tahay halkii ay aqbali lahaayeen oo ay iskaashi la yeelan lahaayeen beesha caalamka, mas'uuliyiinta Turkmenistan waxay go'aansadeen inay madaxa ciidda geliyaan, ayuu raaciyay Mayatiev. CNN waxay ku tilmaantay warbixinteeda in faafitaanka fayraska corona ee adduunka oo dhan iyo bilowgii sanadkii 2020, Turkmenistan waxay ku adkaysanaysay inaysan jirin wax kiisas ah, xitaa iyadoo wadamada deriska ah ay si dhaqso leh u soo sheegeen faafitaanka. Waxay xustay in Iiraan oo Turkmenistan ay la wadaagto xuduud dhuleed oo dheer ay soo sheegtay ku dhowaad 5.5 milyan wadarta kiisaska COVID-19 ee laga helay Iiraan, sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka. Markaynu fiirino waxa ka dhacaya dalalka kale ee isla gobolka ah, waxaynu isweydiinaynaa sidee Turkmenistan uga duwanaan kartaa. Richard Damber oo ah agaasime ku-xigeenka qaybta Yurub iyo bartamaha Aasiya ee Human Rights Watch ayaa sidaa tiri. Sida laga soo xigtay shabakadaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo Australia, dhammaan duulimaadyadii tegi jiray Turkmenistan ayaa hadda la hakiyey, waxaana kaliya loo ogol yahay inay soo galaan muwaadiniinta reer Turkmenistan. Mayatiev waxa uu sheegay in ilowreedyo u joogay Turkmenistan ay bilaabeen inay la soo xidhiidhaan tan iyo May sanadkii 2020, kuwaasi oo u soo sheegay kiisaska la xidhiidha coronavirus isla waqtigaas oo caabuqani uu ku faafay adduunka oo dhan, isagoo raaciyay in fariimaha ugu horreeya ee uu helay ay ka hadlayeen cudur ku dhacaya sanbabada oo hargabka oo kale ah, kaasi oo saameynaya dad badan. Heerkulku waxa uu ahaa 40 digrii, ayaa uu raaciyay Mayatiev. Dabcan tani ma aha xilli hargab caadi ah uu dhici karo. guud ahaan barnaamijkeena intaasi ayaa ku eegyahay. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.